How to add your profile in your computer. Sidee ayaad ugu ogolaan kartaa kombiyuutarkaaga inuu kula isticmaalo ama aad ugu abuurto profile gaar ah asigoo aanan ka taabanaynin waxyaalaha adiga ku gaarka ah haddii uu ku saarnaan lahaa desktop ama documents. Ugu horreyn waxaan sameynaynaa marka waxyaalahana loogu baahan yahay waxay tahay inaan ugu horreyn aan abuuri karno profile. Haddaba profile-ka waa maxay? Profile waxaa la yiraahdaa adiga waxa aad ku shaqeynayso waa profile. Sidoo kale profile waxaa la yiraahdaa waxa dhici karta kombiyuutarkaaga adigoo raba inaad isticmaasho ayaa waxa dhici karta in qof saaxiibkaaga ah ama familkaaga ah xitaa cunugaaga allaha ka dhigo ayaad u baahan tahay inuu kula isticmaalo kombiyuutarkaaga. Haddaba waxaad u baahan tahay in account gaar ah aad u samayso asigoo uusan ka taabanaynin waxyaalaha adiga gaarka ku ah. Ugu horreyn waxaad samaynaysaa marka waxaad tagaysaa calaamadda start menu-ga halkan ayaad kaliya ku siinaysaa kadibna waxaad tagaysaa meeshan ay ku qoran tahay profile-ka caadiga ah ee meeshii aan hore ugu soo baranay oo ah profile picture-ka kaas ayaad kaliya ku siinaysaa kadibna waxaad ka dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay change account setting kaliya ayaad ku siinaysaa isla markii waxa ku soo baxayo daahan gacantaada bidix ee qaybta slideska ayaad waxaad ka furaysaa meeshan ay ku qoran tahay family and other user kaas ayaad kaliya ku siinaysaa kadibna waxaa arkaysaa daah cusub oo ka duwan kuwii aan hore u soo baranay. Kadib waxaad samaynaysaa marka halkan waxaa ku qoran add someone else in this PC. U ogolow inaan qof kale ku soo daro kombiyuutarkan. Okay ayaad ku leedahay wuxuu ku keenayaa download box-ka. Download box-kan ugu horreyn wuxuu ku keenayaa in aad email cusub aad u samayso ama aad geliso emailka qofka aad rabto inuu account-kiisa halkan ka furmo. Haddaba Microsoft waxay awood u leedahay ama ay ku ogashahay inaad u isticmaasho account ahaan inaad 2 account 3 account 4 account ilaa multiple accounts aad ka abuuran karto kombiyuutarkaaga halka markii kale ee bilowga caadiga ah ee aad ka abuuranaysay hal account. Haddaba qaybtan waxaad ku arkaysaa inay inoogu qoran tahay haddii ay dhacday inaadan email aadan haysan qaybtan hoose waxaa ku qoran I don't have this person to sign in. Ma hayo shakhsigan ama qofkan wax ku saabsan ama sign in ku saabsan information-ka. So waxaa leedahay marka aniga kan hoose ayaan dooranaynaa waayo ma rabna inaan account ahaan aan u sameyno ee waxaan rabnaa inaan u sameyno si caadi ah. qaybtan hoose ayaad kaliya ku siinaysaa kadib wuxuu ku keenayaa daahan cusub oo lagu magacaabo midka caadiga ah ee account cusub u sameey. Ilan hadday waxaan soo aragnay inaad account qofka aad ka taqaanay Hotmail, Outlook waxa uu noqon lahaa inaad ka taqaano dan aad rabtay inaad ku samayso balse markan wuxuu ku leeyahay hadduusan qofkan ama haddii ay dhacdo inaadan adigu aqoon u lahayn qofkan account inuu leeyahay haddaba adigu u sameey account. Marka haddii aad account cusub u samaynayso halkan ayaad ka abuuri kartaa balse anaga waxaan rabnaa mid aanan account Hotmail aanan ku xirnayn inaan si caadi ah ugu samayno. Haddaba qaybtan hoose waxaad ka arkaysaa inay ku qoran tahay add a user without a Microsoft account. U sameey user ka madax banaan Microsoft account. Kaliya ayaad ku siinaysaa isla markii waxaa ku soo baxayo daah cusub. Daah cusub wuxuu ku keenayaa marka 3 dialogue. Dialogue koowaad ama qaybta magaca lagu qoraayo qaybtan waa qofka aad u rabto magaca aan u bixi rabno. Anigu hadda waxaan leenahay Abdi Fatah. Okay, wiilkayga curadka ayaan ku magacaabay waxaan ku irwaay waxaan rabaa inuu cunugayga ila isticmaalo kombiyuutarkan. Tusaale ahaan qofka magaciisa ayaad halkan ku qoran kartaa. Anigu hadda waxaan ku qoranay Abdi Fatah. Even waxaa raacin kartaa Abdi Fatah Abdi Wali ayaan dhihi karnaa. Waxaa halkan ku qornay Abdi Fatah Abdi Wali. Okay, wuxuu ileeyahay marka account-kan ma password ayaan u sameeyaa mise waan iska dhaafaa. Labadaba adiga iska leh. Haddaad jeceshahay password u samaysan kartaa haddii aad jeceshahayna waad iska dhaafi kartaa. Maadaama aad qofkan u abuurayso account waxaa wanaagsan qofka account-ka si qalalan inaad ugu abuurto kadib aad tiraahdo account-ki waa kuu diyaar haddaba password-kaaga ku xiro si kaagana uu gaar kuugu noqdo shakhsiga kalena kiisa ay gaar ugu noqoto. saas darteeda marka halkan waxa ku arkaysaa inay ku qoran tahay nextiga ayaan kaliya ku siinaynaa oo waxa arkaysaa account-kii inay diyaar inoo tahay. Okay, account-kii waan abuurnay. Haddaba account-kii markaad kaliya ku siiso wuxuu ku keenayaa ama uu ku leeyahay
janji account type ama ka bedel magaca akoonka qaabkaad u rabto. Haddaan click siino automatically wuxuu ii keenayaa qofkan maxaan rabaa ama awood intee la eg ayaan rabaa inaan u ogolaado. akoonkan hadda waxaa ku qoran standard user, mid caadi ah inuu qofka isticmaali karo, wax uu ka koobiyeysan karo, wax uu ku shuban karo, laakiinse uusan u soo xadgudbi karin akoonkaaga. waan arki doonaa. okay, qaybtan haddii aan furo aan ka doorto qaybtan administrationka, qofkan wuxuu awood u leeyahay waxa aad adigu awood u leedahay. haddaba labadan ayaan rabaa inaan idin kala sharxa marka. aan doorana midka koowaad ee ku qoran standard. qofkan standard marka uu yahay awood uma lahan inuu applicationska qaar uu ku shubi karo, asiga oo ku shubanayo dhammaan userska. kaliya wuxuu ku shuban karaa userkiisa. waa qodobka koowaad. midda labaad wuxuu ama waxyaalaha uusan accesska uusan u helaynin ama awood uusan u helaynin waxaa ka mid ah in uusan waxyaalaha qaar marka uu rabo inuu ku shubto ama uu rabo inuu delete gareeyo in la soo weydiinayo su'aal oo ah geli akoonka administrationka qofka passwordkiisa. so qofka marka uu rabo inuu wax ka sameeyo waxaa qasaba inuu adiga ku yimaado uu ku yiraahdo kana raba inaan ka sameeyo haddaba ii geli passwordka. sidaas ayaa passwordkaaga gaarka ugu gelinaysaa, kadib ayuu qofka wuxuu rabo uu ku shuban karaa. inta yartaa uu shaqadaas haysto unbuu awood u leeyahay. haddii shaqadaas uu qabto isla markii haddana meeshii ayuu ku soo laabanaya ilaa inuu qofka helo ama uusan helin passwordkaaga. hadduu helo passwordka asiga wuxuu rabo ka samaysan karaa, haddii uusan helin passwordkana adiga ayaa u samayn kara. maadaama qofkan aad u ogashahay asagasti ahaan inuu isticmaalo computerka, waxaad kaliya leedahay marka midkan standardka. ma lahan inaad adigu asiga awood u leeyahay inuu word u isticmaali karo, filmo inuu fiirsan karo, wax inuu ku soo download gareysan karo, waxyaalaha qaar waa uu qabsan karaa, laakiin awoodda ama accessibility-ga oo Windows-ka inuu wax ka bedelo asiga awood uma yeelanayo. qaybtan aan furno aan ka doorana qaybtan administratorka. administratorka qofkan wuxuu awood u leeyahay in shakhsiga aad akoonka aad u samaysay inuu awood u yeelan karo sida aad wax u delete gareynayso si la mid ah asigan inuu wax u delete gareyn karo. so labadiina waxaad noqonaysaan laba qof oo isku power ah. saas darteeda marka uma baahna qofkan haddii administration ka dhigto uma baahna mar walba inaad u geliso password, ee wuxuu u baahan yahay kaliya inaad bilowgaaga hore akoonkan aad u abuurto kadibna aad siiso awoodda aad rabto inaad siiso. saas darteeda marka anagu waxaan rabnaa inaan u abuurno qofkan standardka si aan kuu tuso farqiga u dhaxaynayo standardka iyo midka ah administratorka. so marka midkan koowaad ayaan ku leenahay okay markii aan dhaano hadda waxaan ogaanay akoonkan in uu leeyahay beri waad u awoodi kartaa oo halkan inaa imaado ayaad ka bedeli kartaa. asigu waxba kama bedeli karo ilaa inaad adigu wax bedelan karta maahine. haddii ay dhacdo akoonka inuu shaki kaaga jiro abuuridiisa ama wax noocaas ana kaliya halkan ayaad imaanaysaa, kaliya waxaad leedahay remove. haddaba waxaan barobeynaynaa marka akoonkii aan sameynay inaan dib ugu laabano si aan u hubino akoonka inuu si saxa u shaqaynayo. haddaba waxaan tegaynaa calaamadda start menu-ga halkaana, kadib waxaan tegaynaa meesha account profile-ka, kadibna waxaa halkan ku arkaysaa in sign out-kii hadda uu inoo soo galay magacii Cabdifataaxa. so laba mid waa samayn kartaa. akoonkan adigoo kuu furan ayaad awood u leedahay inuu akoonka kale uu u gudbi karo. waxaa dhici karta adigoo isticmaalaya shaqo ku haystid inuu ku yimaado uu ku yiraahdo waxyaalo degdega raba hal mar inaan qabsada isii. so adigoo waxyaalo ay ku kacsan yihiin ayaa kaliya halkan tegaysaa, akoonkiisa ayaad ku dhufanaysaa, automatically qofka akoonkiisa ayuu u gudbaa, shaqaduu rabo ka soo qabsanaa. hadduusan qofkaas computerka diminin adiga ayuu akoonkaaga imaanaya. intaas waa isla fahanay sidaan filayo. haddaba marka maxaan samaynaynaa? qaybtan waxaa inoogu qoran Cabdifataax. Cabdifataax ayaan kali ku siinaynaa. inta aanan ku siinin akoonkan hadda isticmaalayno ayaa waxaan leenahay sign out. ugu horreyn waxaan dhahaynaa sign out si aan step by step aan iskula socono. hadda waxaa arkaysaa akoonkii inuu sign out inoo noqday. okay, halkan ayaan furaynaa. waxaa gacantaada bidix aad ka arkaysaa in markii hore caadi uu inoo ahaa, balse markii dambe ay inoogu soo biirtay akoon ama profile lagu magacaabo Cabdifataax. haddaba Cabdifataaxa ayaan kali ku siinaynaa, kadibna waxaan leenahay sign in. waxaa arkaysaa akoonkaaga markii aad kali ku siiso in wallpaperkii, screenkii, waxyaalihii kuu saarnaa private ay ku yihiin, halka qofkan kale markii aad gelayso uu si gaar ugu noqonayo. qofkan asigana wuu bedelan karaa, qof kale ayaad abuuri kartaa, wuu bedelan karaa qof kale, dependent ilaa intaad u baahan tahay ayaa abuuri kartaa. haddaba midkan ayaan dooranay, kadibna waxaan dhahaynaa sign in.
sign in markaan dhahno automatically computerkan wuxuu u soo kacayaa sida computerka in la format gareeye oo kale ayuu u soo kacaya. waa arkaysaa wuxuu ku leeyahay waxaan diyaarinaynaa waxyaalaha adiga kugu khuseeyo, waxyaalo waqti yar ayuu qaadanayaa, maybe inay badato, maybe inay yaraato, dependent your PC-gaaga. intaanoo dhan marka uu dhammeeyo conclude oo desktopka inoo geeyo ayaa waxaan rabnaa ugu horeyn inaan abuurno password. waa kow. labo, inaan qofka akoonka loo sameeyey inuu awood u leeyahay inuu furi karo user account-kaaga. macnaha waa wadada labaad aan rabno inaan ku ogaano, because of waxaan rabnaa marka inaan u kala saarno labada shakhsi ee kala isticmaalaysa, yaa awood leh iyaanan awood lahayn. hadda ugu dambeyn waxaa arkaysaa computerkeeni inuu inoo soo kacay, inuguna soo kacay daah cusub sida shaashada kaaga cad. okay, ugu horeyn waxaan samaynayaa marka scale-ka ayaan yara weynaysanayaa si aan u aragno waxa aan ku shaqaynayno. right click ayaan leenahay, meeshaan waxaa ku qoran display setting ayaan kali ku siinaynaa. kadibna meeshaan ay ku qoran tahay scale-ka 100% ayaan furaynaa, 125 ayaan ka dhigaynaa si scale-ka aan u arki karno waxyaalaha deep and delete. halkan wuxuu kugu soo qoraa some applications ka qaar waxaa u baahneenaysaa inaa xirto oo aad dib u soo furto. marka never mind, wax application ba ima furna. haddaba waxaa arkaynaa haddii aan tagno qaybta start menu-ga, waxaa arkaysaa ugu horeyn waxyaalahan oo dhan inay yihiin waxyaalo cusub. waxaan oo dhan downloadskiisa ayaa socdo, computerka update ayuu qaadanayaa. sida uu midkaaga update u qaadanayo ayuu qofkaana akoonkiisa update ugu qaadan karaa. okay, maxaan samaynaynaa marka? ugu horeyn waxaan samaynaynaa waxaan bedelanaynaa ama aan bedeli karnaa akoonka desktopkaaga wallpaperkiisa adigoo tagaayo right click, kadibna tagaayo meeshaan ay ku qoran tahay personalize, kadibna waxaad ka dooranaysaa meeshaan ay ku qoran tahay wallpapers. waa arkaysaa wallpaperskii my pictures ee hore u yaalay ayuu hore ka soo akhristay. haddaba waxaan ka dhiganaynaa midka halkan inoo saaran, kan ayaan dooranaynaa wallpaperka. log screen-kana waxaan ka dhiganaynaa qaybta log screen-ka ayaa sigana tegaynaa. sidoo kale waxaan ka dhiganaynaa haddii aan dhahno browse, kadibna aan ka dhex raadino qaybta computerka, aan ka dhex raadino waxaan furaynaa Windows, kadib waxaa halkan ka furaysaa web, waxaa furaysaa wallpaper, Windows. okay, halkan ayaa waxaan ka raadinaynaa waxa inoogu qoran wallpaperka caadiga ah. waxaan u maleynayaa wallpaperkeena kan inoo saarna. haddaba waxaan ka dhiganaynaa midkan ayaan ka dhiganaynaa. okay, ugu horeyn waxaan bedelnay profile-ka wallpaperka inoo saaran desktopka iyo sidoo kale log screen-ka. sidoo kale waxaan bedelenaynaa ama aan bedeli karnaa marka la soo galayo profile picture-ka. waxaan tegaynaa calaamadda start menu-ga halkaana, waxaan tegaynaa qaybta profile-ka, waxaan leenahay marka change account settings-kiisa ayaan tegaynaa. kadibna halkan waxaan ka dooranaynaa browse markaan dhahno automatically waxaan u tilmaamaynaa sawirkii aan rabnay inaan ku bedelno. wuxuu inoo yaalaa local C pro production profiles. okay, kana waxaan ka dhiganaynaa profile-kan caadiga ayaan ka dhiganaynaa. okay, mid yar oo qurux badan ayaan raadinaynaa, waxaan dooranaynaa midkan ayaan dooranaynaa. okay, because waa white, kana waa white, so aad uu qurux badan yahay. okay, labadan waan dooranay. okay, waxaan ogaanay inaan magacii ka bedeli karno. okay, waxaan u samaysanaynaa password anagoo ka tegayna qaybtan sign in-ka, kadibna waxaan u bixinaynaa password. maadaama uu Cabdifataax leeyahay akoonka waxaan ku magacaabaynaa password kale. okay, passwordkan waxaan leenahay daacad oo kale ayaan dhahnay, daacad oo kale ayaan dhahnay, fadlan amar la'aan ha gudbin ayaan dhahnay, dash mahadsanid ayaan dhahnay. okay, waxaan arkaynaa marka inaan magacii bedelnay. passwordkiina aan u samaysan aad arkaysid daacad oo D capital, sidoo kale daacad D capital. kadib waxaan leenahay marka next, waxaa arkaysaa akoonka inuu diyaar inoo yahay. okay, waxaan hadda ogaanay marka inaan akoonkii profile-ka aan ka bedeli karno, sidoo kale inaad sawirkii bedeli karto wallpaperka iyo log screen-ka. haddaba hal mar waxaan samaynaynaa marka inta aanan akoonkaaga ma u soo gudbi karaa oo qofkan xogtaada gaarka ah ma arki karaa inta aanan u soo gudbin, ayaa waxaan rabaa hal mar akoonkan inaan sign out dhaho, kadib aan dib u soo galno si aan u hubino labada akoon, labada profile aan kala saaranay, midka log screen-ka iyo userka kale log screen-ka. waxaan tegaynaa calaamadda start menu-ga, kadib waxaan tegaynaa midkan ay ku qoran tahay Cabdifataax, kadibna waxaan leenahay marka akoonka Cabdiweli ayaan kali ku siinaynaa. okay, isla markii waxaa arkaysaa akoonka Cabdiweli inuu u soo gudbay. haddii aan Cabdifataax u soo laabano waxaa arkaysaa akoonkii Cabdifataax automatically inuu ku xiran yahay password. sidoo kale log screen-ka shaashada dambena waxaa arkaysaa inuu ku xiran yahay ama uu saaran yahay
log screenkii ama wallpaperkii aan soo saarana haddaba waxaan tegaynaa kan cabdifataax waxaan gelinaynaa passwordkeena okay waxaan gelinaa passwordkii automatically waxaa arkaysaa desktopkeeni si caadi ah inuu inoogu yimi okay hadda waxaan ogaanay marka inaan profileka aan bedeli karno sawirka aan rabnaa saari karno profile pictureki aan bedeli karno sidoo kale desktop wallpaperkii aan bedeli karno iyo waxyaalo kale haddaba qofkan awood ma u leeyahay inuu u soo gudbi karo akoonkaaga waa muhiimadda ugu muhiimsan ee akoonka profileka meeshii hadday aan kuu soo sharxayay oo u kala soconeed qofkan awood noocee la eg ayaa rabtaa inaad siiso ma standard ayaa siinaysaa mise administratorka haddaba waxaan furaynaa qofku wuxuu u soo gudbi karaa akoonkaaga inuu furo file explorerkaaga kadibna uu u sii gudbo midkan my pictureka kadibna uu soo gudbo ilan haddeertan computerkan hadduu furo my picture waxaa arkaysaa waa u qalal waxba kuma jiro laakiin wuxuu awood u leeyahay inuu u soo gudbi karo akoonkaaga haddaba aan baroobayno wuxuu tegayaa qofka meesha oo localka caadiga ayuu tegayaa kadib meeshan ay ku qoran tahay userka ayuu kale ku siinayaa halkan waxaa ku arkaysaa labada profile ee ahaa cabdiweli oo ah midka anaga aan lahayn oo mainka ahaa iyo midkan kale cabdifataax oo ah midka kale aan hadda abuurnay haddaba waxaan samaynaynaa marka waxaan u gudbaynaa midka cabdifataax cabdiweliga ah cabdiweliga ayaan double click siinaynaa automatically wuxuu ii keenayaa wuxuu leeyahay ma u haysatid fasax inaad gasho folderkan continue haddaan dhaho automatically wuxuu ii keenayaa su'aashan uu ku leeyahay qofkan geli passwordkiisa haddii ay dhacdo inuusan haysan passwordka awooddu ma lahan inuu galo soo marka inaad siiso qofka akoonka qaabka aad u rabto awoodda halkan ayaad ka maamuli kartaa haddaba qofkan haddaad soo siiso akoonka ah midka ah ama awoodda ah administratorka wuxuu awood u leeyahay qofkan si toos ah inuu u soo gudbo una soo gudbo akoonkaaga kadibna uu tusaalo akoonkii ayuu profileka ahaan waxaan u soo siinaa administratorka ama passwordka ayuu haystaa okay waxaan u maleynaa passwordka caadiga ah inuu ahaa cabdiweli I don't know wallahi waan iloobay passwordka wixii aan ka dhignay aan doorano passwordka nooca aan ka dhignay nooca binka ayaan xasuustaa 12 13 14 okay ayaan leenahay okay waxaa arkaysaa qaybtan kore waa aragtay automatically wuxuu isku furay akoonkii inuu qaybtan joogo okay back ayuu dhahay qofka ama si accident ayuu isaga xiray haddaba dib wuxuu ugu laabtay meeshii uu hore ugu jiray haddaba fiiri my computer ayuu furay kadib local seed ayuu furay userkii ayuu furay cabdiweli ayuu furay caadi uu isticmaali karaa because of wuxuu haystaa passwordka caadiga ayuu haystaa soo marka mar walba waxaa ogaataa profileka markii aad abuurayso inaad ku abuuri karto qaabkan ee hadda shaashada kaaga muuqata waa haddii aad rabto inaad qofka awood intee la eg ayaad rabtaa inaad siiso ugu dambayn waa anigoo ah cabdiweli maxamed waa inoo iyo cashirkeena xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh